The Unity Palace waa qasriga madaxtooyada ugu quruxda badan qaaradda Afrika wuxuuna ku yaalaa dalka Cameroon. qasrigan ayaa caan ku ah quruxda dhirta noocyadeeda kala duwan ee lagu xardhay waana sababta kaalinta koobaad uu uga galay dhammaan madaxtooyinka qaaradda Afrika oo dhan. kaalinta labaad waxaa soo galay madaxtooyada dalka Masar ee Abdin Palace oo ku taala magaalada Qaahira ee caasimadda dalkaasi. aqalkan madaxtooyada dowladda Masar ayaa sidoo kale ku yaala goob aad u qurxoon waana sababta keentay in kaalinta labaad uu soo ciriirsado. Union Buildings waa madaxtooyada dalka Koonfur Afrika waxayna ku taala magaalada Pretoria ee dalka South Africa waxaana lagu xardhay dhirta noocyadeeda kala duwan iyadoo sidoo kale u dhisan qaab casri ah. State House of Nambia waa dhismaha madaxtooyada dalka Nambia wuxuuna ku yaalaa magaalada Windhoek ee caasimadda dalkaasi. aqalkan ayaa u dhisan qaab aad u qurux badan oo ay jeclaysato cid kasta oo soo booqata. The Flag Staff House waa aqalka madaxtooyada dalka Ghana wuxuuna ku yaalaa magaalada Accra ee caasimadda dalka Ghana. aqalkan ayaa kaalinta shanaad galay maadaama uu yahay mid ka mid ah aqalada madaxtooyooyinka ugu quruxda badan ee qaaradda Afrika. Lavlaha Palace waa dhismaha madaxtooyada dalka Madagascar wuxuuna ku yaalaa magaalada Antananarivo. aqalkan ayaa leh wadooyin aad u qurux badan oo soo jiidata cid kasta oo indhaha saarta. Presidential Palace waa qasriga madaxtooyada dalka Suudaan wuxuuna ku yaalaa magaalada Khartoum ee caasimadda waddankaasi. aqalkan ayaa mid aad u qurux badan oo si weyn ugu riyaaqdo cid walba oo timaada. Presidential Palace waa dhismaha madaxtooyada dalka Mauritania wuxuuna ku yaalaa dalkaasi. dhismahan ayaa soo galay kaalinta 8aad madaxtooyinka ugu quruxda badan qaaradda oo dhan. Presidential Palace waa dhismaha madaxtooyada dalka Senegal wuxuuna ku yaalaa magaalada Dakar. dhismahan ayaa qasri aad u qurux badan isla markaana leh farshaxan aad u soo jiita indhaha dadka. State House waa aqalka madaxtooyada dalka Uganda wuxuuna ku yaalaa magaalada Kampala ee caasimadda dalkaasi. dhismahan ayaa soo galay kaalinta 10aad ee ugu dambeysa 10ka madaxtooye ee ugu quruxda badan ee ku yaala qaaradda Afrika.